ururka dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa maanta deeq dhar ciid u qaybiyay dadka baahiyada gaarka qaba, ciyaalka agoonta iyo kuwa danta yar ee ku nool xirooyinka barakacayaasha duleedka Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada ee Ciyaaraha Dowladda Koonfur Galbeed Gudoomiyaha Samafalka Gobolka Baay Xildhibaan Duceysane Daacad oo ka mid ah Golaha Wakiilada Dowladda Koonfur Galbeed Suldaanka Beesha Carab iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ah bixinta deeqdan dharka ciidda ah. Caruurtan loo qaybiyay dharka ciidda ayaa isugu jiray agoon iyo rajo iyo kuwa qaba baahiyada gaarka ah, kuwaas oo baahi weyn u qabay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. Xildhibaan Duceysane Daacad oo ka mid ah Golaha Wakiilada Dowladda Koonfur Galbeed ahna Gudoomiyaha Dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa u mahad celiyay dadkii ka qayb qaatay ciidsiinta caruurtan agoonta iyo kuwa qaba baahiyada gaarka ah. way farxad weyn ah ciidishanaad aniguna siinsiina ama mayla raay farxadda oo ciidsiinta siin kula qayb qaadana run ahaantii waloo ilaahay linka mahadnagu ilaahay awoodaas iyo caafimaadkaas iyo nabadaas una walaalnimada aan ku gurmudnana si ya kama hasan taaniyan waliin mahadnagaanaha ganacsatada degmada Baydhabo ka sugan qof walba wali u sahana deersay karaan shay hayaan weylana eedan kama hasanta hadii ganacsatada magaalada Baydhabo haada fanade antan umad dhar ciid ma deersay fan ciid walba ila raa isu yasaw banga ilaahay ku saka yoona eedan kama hadnagaan dhamaantiin way si rajaayeen marka farxad si hordhacayna wala siin ka dirayha ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair way rajaaynaha in dhamaantiin ku wada ciidan nabad iyo caafimaad iyo horumar insha Allah. Suldaanka Beesha Carab iyo mid ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan dharka ciidda ah ayaa u mahad celiyay ururka dhalinyarada degmada Baydhabo oo u kacay dadka aan awoodin wax ay ku iibsadaan dharka ay ku ciidi lahaayeen. Saaxiibkay Duceysane oo mar walba dhabar adeegahay ciid walba kulay intaas ciidada dad tumansan ka badwaneen dhikanta deegaanadana dadka walaalo hatuus dhalinyarada juudi badan ka biyano suusaada sheego gaabab yar iyo walaal jar laakiin idikooreytii idireysa aan malayo ilaa 400 dad ku dhawaada la si hadana 100 la si alxamdulillah ma had ilaahay iska leh ma hortantoon kuma hadnagaan laakiin gudoomiye Duceysane dharaan ma hadnagaan dadkii walaalin abaabulay oo aan ka hay inta masaakin in wal helan oo ka tala galay lan fikrad eed am fayda oo aan ka deeshin mudun soo biyo محمد بين يا هرتن نجان إلهي سوينا قرب شيء قلا والبدن خير قبنا إلهي سي. Gudoomiyaha Samafalka Gobolka Baay Mudane Aadan Xasan Maxamed ayaa bogaadiyay dadaalada muuqda ay wadaan ururka dhalinyarada degmada Baydhabo ee ku aadan garab istaaga dadka tabaalaysan. dad in iska jiraan ciyaal uriyaan dad yarba la ka caawiya haya marka maylana markood i marlamaad dhalinyarada magaalada degmada Baydhabo oo isxilqaamen dareeman inay dadkan baahido ay qabaan ciidsiyan in ka han eedan kama hadnagaana muhiimadina way baahan in lanka usa ismooji ogaada inay dadka tabariyar tawaalaysan uriyaan mesela kala soo caawi karo dadaal soo sameey isku caawi karo inay soo sameey arrin irfa hadda low maylana dhalinyarada ka tii barnaamijkan haddana ka guuleysano geek bun usulni iyo bariid ata markood marlamaad ma hasanyi ma kala ma hadnagaan halankii oo kula shaqeey hoo proposal ka hajeed misata idea hajeed lanka way muhiim ah in isku fahmi karo laakiin la fahmay kala shaqeeyay malaha arintan la hirgeliyona ma hasanyin maadaama la ciidsi ciyaal yar yar iyo curyaamin iyo hindhoolayaal oo la ku yaabo in iidifana in sababtin ay ka ciidan geek ay ka faraxsan iyo bariid ata maylanaha ma hasantin may aragahaynaha ili oo dad boqol ka dhow oo in iska jara bulshada linka soo baahiyaha gaarka qabaan inay geeka ciid iyo aqab shishal duwan ay haysadaan marka maylanaha ciide farxadka ciide dawladii iyo dhalinyaradii iyo bulshada isla noolina dareemaha ay tabaahdo isla noolin waana si hadba xal ay la siin idinku doona. Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada ee Ciyaaraha Dowladda Koonfur Galbeed oo ugu dambeyn ka hadlay madashaas ayaa u mahad celiyay maamulka dhalinyarada degmada Baydhabo. farxadeen noo tahay maanta in run ahaantii aan aragno bulsho intaan la eg
oo kala duwan oo dadkii baahiyaha gaarka qabay caruurtoodii hadday noqdaan maxallaha agoontii dad aan awoodin inay iidan maanta in dhallinyarada degmada baydhabo ay isku xilqaamaan in dhallinyaradaanita ay beri iyo caruurtan ay beri ka qayb qaataan farxadda ciidda insha allahu tacaala isku xilqaamay inay u helaan dhar ciid ah maanta ay soo gaarsiin waxaan leenahay idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin run ahaantii waxaanu kula dardaarmaa degmooyinka kale dhallinyarada joogaan in sidaan si lamid ay isku xilqaamaan ee dadka baahiyaha gaarka ee dadka oo maxaan lahayay agoonta in farxadda ciidda si bulshada uga qayb qaataan si isxilqaana ee bulshada iyo ganacsatada wax ugu soo arooriyaan ayna u gaarsiiyaan insha allahu tacaala annagoo ka duulayna dardaarankii iyo awaamirtii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ilaahay ka sokow waxaana waxay ku suurta gashay maxaa la dhahay dhiirigelintii aan ka helayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed in garab laisku noqdo maxaa la dhahay bulshadina la garab istaago dadka baahiyaha gaarka qabo agoontana macnaha maxaa la dhahayay la taageero bulshada si ay farxad ula qaybsadaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in la joogtay arrintaanitii la gaarsiiyo maxaa la dhahay dhammaan degmooyinka kale ee baydhabo sida la ajligeed insha allahu tacaala waxaan leenahay cid allaale ciddii ka qayb qaadatay ganacsatada baydhabo iyo maxaa la dhahay dhammaan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo bulshada meel walba ay joogaan waxaan kula daarminaa inay isqabsadaan amniga ay ka wada shaqeeyaan maxaa la dhahay dadka aanan awoodin in maalinta ciidda farxadda ay ka qayb qaataanna siday u jecel yihiin familkooda ilmahooda inay u farxaan inay ula jeclaadaan walaalahood ayagana sidaas oo kale inay la farxaan waxaynan leenahay farxad ku iida nabad ku iida insha allahu tacaala hambaliya ciidan waaynu la qaybsanaynaa intaan in ka badanna insha allahu tacaala waa idin garab joogayna hadduu leeraale ka noqdo Shaaciya TV Baydhabo